بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعنا مالون أكسنا داوديال ومالون بسبتيا تاريخنا يتهاي أفرتا بيش أبريل سنة لبدا كل لحية لبعتانك وافق سنة لحية تبانك بيش شوال سنة كنا أفر بقول أفرتن يتدبا هجرية دا كسو دوادا برامجك ورارك مانتو ونديكو قسو قدبين دونو وراركي دعدويكي قدن بي إدمي ذا كدعي ساعدية أي نصودا أفني إلا إي دقيقة دن qodobada aan maanta barnaamijkeedin kugu haynana waxaa ka mid ah waa ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran oo shaaciyay inay qaadeen weerar kale oo gantaalo iyo diyaaradaha droniska loo adeegsaday oo ay ku beegsadeen saldhigyada ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe iyo xarumo military waa maamulka ciidanka iyo goobo xasaasi ah oo ku yaala bartamaha waqooyiga iyo koonfurta Israa'iil. weerarkan oo ay ka qayb qaateen Xuutiyiinta Yemen ayaa sababay burbur xooggan iyo khasaare nafeed. gudaha Iran waxaa ka soconaya baadigoob ka duuliyay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ay soo rideen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran. militariga Israa'iil oo dhankooda shaaciyay in ay burburiyeen warshadaha kiimikada batroolka ee dalka Iran. ururka Hezbollah uu ka warbixiyay weeraro iyo duqeymo ka dhan ah ciidamada Israa'iil iyo magaalooyinka dhaca waqooyiga Israa'iil. ku dhawaad 40 qof oo dhimasho iyo dhaawac u ka soo gaaray weerar iyo weerar celis ay iswadaarsadeen ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine iyadoo dagaalka uu sii xoogaysanayo. dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. haddii aad degan tahay dalka UK oo aad doonayso inaad lacag dirto waxaan ku hayaa fursad dahabi ah si fudud ula soo deg abka Somrimit adigoo isticmaalaya taleefankaaga tabletkaaga ama kombiyuutarkaaga. Somrimit oo ah xawaalada ugu raqiisan ee lacag dirista waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. hadda kala soo deg abka Somrimit Google Play ama App Store-ka. Somrimit amaano iyo adeeg hufan. ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay wax barayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo loo adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhnayn hadda ku soo biir waanad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. Mawlid Xaaji Cabdi oo barnaamijka ila tabinaya bal ay noogu bilaabo wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda bariga dhexe. maasirada nimca iyadoo maanta dagaalka bariga dhexe ka aloosan oo galay maalintii 36aad waxaa soconaya weerar culus oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan sawaariikhda iyo gantaalada ayaa dhinac kasta isku dhaafaya waxaana laga cabsi qabaa dagaalkan inuu xoogaysto. waxaan idin soo gudbin doonaa warar la xiriira Mareykanka oo bilaabay in uu u soo raro gobolka bariga dhexe ciidamo aad u fara badan iyadoo diyaaradaha ciidamada xabaara haatan lagu soo waramayo hawada inay ku soo jiraan. haddaba waxaynu eegaynaa qaybta hore ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira duqeymaha lagu qaaday Israa'iil oo ahaa duqeymo 3 aflaa. ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ee loo yaqaano IRGC ayaa ku dhawaaqay in ay furiyeen mawjadii weerar ee 94aad ee howlgalka ballanqaadka dhabta ah dufcadiisa afraad iyagoo sheegay in howlgalkaasi lagu beegsaday xarumo warshado ah iyo goobo military iyo sidoo kale goobaha ay ku sugan yihiin taliyaasha ciidamada Israa'iil. bayaan lagu baahiyay telefishinka dawladda Iran ayaa lagu sheegay in ciidanka IRGC ay beegsadeen goobo ku yaal koonfurta bartamaha iyo waqooyiga Israa'iil iyagoo adeegsanaya sawaariikh nooca blastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in gantaal nooca clusterka ama gantaalada ay ku xiran yihiin madaxyada qaraxa oo kamid ah gantaaladii laga soo tuuray Iiraan oo ku kala firdhay qaybo dhowr meelood ah oo ka tirsan Tel Aviv-ta weyn. Kanaalka 12aad ayaa soo xigtay booliiska Israa'iil oo sheegay in firarka qaraxyada ay ku dhaceen 3 goobood oo ku yaala Tel Aviv, halka raadiyaha ciidanka Israa'iilna uu ku waramay in burbur weyn uu ka dhacay 2 goobood oo ku yaala Ramat Gan iyo sidoo kale Bnei Brak. adeegyada gurmadka degdega ee Israa'iil ayaa sheegay in ay jiraan dhaawacyo laga soo wariyay magaalada Batia Tikva kadib duqeynta Iiraan ee bartamaha Israa'iil. laamaha difaaca rayidka Israa'iil waxay kaloo sheegeen in khasaaro weyn oo ka dhacay 4 goobood oo ku yaal Tel Aviv-ta weyn. dhacdo kale oo la xiriirta weerarkan, telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in diyaarad drone ah oo laga soo diray Yemen kuna socotay magaalada Rashrash oo Israa'iiliintu ay la baxeen Ilaad hawada lagu qabtay iyadoo aan la shidin seeriga digniinta bixiya. dhanka Iiraan haddii aynu jaleecno wakaalada wararka ee Maahir ee Iiraan laga leeyahay ayaa baahisay war ka soo baxay xarunta howlgallada militariga ee Qatam al-Anbiya ee ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah Iiraan in looga digay in weerar kasta oo Israa'iil ay ku qaado safaaradaha Iiraan ee caalamka uu ka dhigi doono safaaradaha Israa'iil ee gobolka bartilmaameed sharci ah oo toos loo weerari doono. war kale oo dhanka Iiraan ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee IRGC loo yaqaan ayaa waxay sheegeen in iska caabinta gobolka ay cadaadis saarayaan ciidamada Israa'iil iyo kuwa Mareykanka iyagoo fulinaya weerar wax ku ool ah isla markaasna iska caabinta Yemen ay ku beegsatay koonfurta Israa'iil sawaariikh balastiga halka iska caabinta Ciraaq maanta oo kaliya ay fuliyeen 19 weerar oo sawaariikh iyo diyaaradaha droniska loo adeegsaday saacadihii la soo dhaafay. xagga Israa'iil raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa ku waramay in ciidanka cirka Israa'iil ay weerareen warshado kiimikada batroolka oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Iiraan. shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Maher ee Iiraan ayaa sheegtay in shaqaalaha warshada laga daadgurayay warshada isla markaana aysan jirin qatar wasaqeyn ah oo ku imaan karta magaalooyinka dariska ah meeshaasi. wakaalada wararka ee Tasniim ayaa markii dambe soo xigatay ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Khuzestan oo sheegay in 5 qof ay ku dhaawacmeen weeraradii ka dhacay aaga kiimikada batroolka ee Mashari sidoo kale Bandar Imaam ee dalkaasi. isla wararka Israa'iil ila wareed oo soo xigtay raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in weerarada lagu qaaday warshadaha kiimikada batroolka Iiraan ay sababi doonaan khasaaro weyn oo dhanka dhaqaalaha oo ku yimaada Iiraan isla markaasna ay qayb ka yihiin hawlahani dadaalo ballaaran oo lagu baagsanayo warshadaha militariga iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan weeraradan in la sii wado gaar ahaan kuwa lagu hayo warshadaha birta iyo kuwa shidaalka. wararka Iiraan haddii aynu dib ugu laabano gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa ku digay in marinbiyoodka Hormuz uusan ku soo laaban doonin xaaladiisii hore sida ay tibisay wakaalada wararka Tasniim ee Iiraan. Qalibaf ayaa intaasi ku daray in dal kasta uusan xaq u yeelan doonin inuu ka gudbo marinbiyoodkan ogolaansho la'aanta Iiraan. waxaana carabka uu ka adkeeyay in jidka Iiraan uu yahay iska caabin oo uusan ahayn tanaasul ay samayso. isla wararka Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa uga digay dalalka galbeedka Asia ama bariga dhexe inay ka digtoonaadaan dadaalada Mareykanka iyo Israa'iil ee lagu doonayo in lagu abuuro qulqulatooyin iyo xasilooni darro gobolka laga rido iyagoo sheegaya in ay horay u shiisaaciyeen liiska bartilmaameedyadooda isla markaasna ay ka digayaan isku dayada Israa'iil ee lagu horinayo qalalaasaha ka dhanka ah wadamada dariska la ah Iiraan. war kale oo dhanka Iiraan naga soo gaaraya ciidamada Iiraan ayaa sheegay in difaacooda hawada ay soo rideen diyaarad nooca drones oo Mareykanku leeyahay ahaydna nooca MQ-1 oo dul hayhaabaysay gobolka Isfahan. dhankiisa
madaxa difaaca hawada Iran oo ay soo xigtay wakaalada IRNA ayaa sheegay in la burburiyay diyaarado horumarsan oo cadawgu leeyahay kuwaasi oo ahaa in ka badan 160 drone iyo 10 gantaalo oo ahaa nooca cruise-ka. waa hagaag balmarkana aynu eegno qodobada kale ee wararka ku jira. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar diyaaradaha droniska oo Ruushka uu leeyahay oo lagu qaaday suuq ku yaal magaalo ku taala furimaha hore ee dagaalka ee lagu magacaabo Nikopol ee dalka Ukraine subaxnimadii hore ee maanta oo Sabtida sida uu sheegay xafiiska xeraalyaha guud ee Ukraine. dhinaca kale Ruushka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof lagu dilay halka ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerar gantaalo iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo Ukraine maanta ay ku qaaday gobolka Rostov ee dalka Ruushka. wararka kale ee barnaamijka ku jira hadii aynu ku sii socono 8 xubnood oo ka tirsan hal qoys ayaa ku dhintay gobolka Kabul kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Afghanistan fiidnimadii xalay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maanta. dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 5.8 ayaa ka dhacay waqooyiga bari ee dalka Afghanistan. xarunta dhulgariirkuna waxa ay sheegtay in dhulgariirkani uu 35 kiiloomitir meel ka xigta gobolka Badakhshan uu ka dhacay balse saameyntiisu waxay gaartay meelo badan oo ay ku jirto Kabul. waa hagaag haatan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee dhanka Xisbullah iyo Israa'iil. ururka Xisbullah ayaa lagu soo waramayaa inay qaadeen weerar ka dhan ah militariga Israa'iil. warkan waxay ku sheegeen in dhowr deegaan oo ku yaala koonfurta Lebanon ay ku beegsadeen ciidamada Israa'iil. dhinaca kale magaalada Kiryat Shimona ee dhacdaha waqooyiga Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in Xisbullah gantaal ay ku weerareen magaalada Nahariya goorsii horeysay oo maanta ah. duqeymo kale ayaa laga soo warinayaa. dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa iyaguna beegsaday buundooyin hor leh oo ku yaala koonfurta waddanka Lebanon. waxaana la sheegayaa in khasaare weyn oo ka dhashay weeraradaasi loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil oo lagu beegsaday buundooyinka. dhanka magaalada Beirutna dhowr qof ayaa ku dhaawacantay duqeymo Israa'iil ay geysatay saacadihii la soo dhaafay. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa xubinta falanqaynta ee barnaamijka ee uu ku eegi doono xaaladda dagaalka bariga dhexe sidoo kale warbixin ku saabsan sida Iran ugu guuleysatay inay soo rido diyaaradaha dagaalka casriga ah ee Mareykanka. balse marka hore aynu ku hakanno qadar xayeysiina. qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Asia, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoostagana bangiga caalamiga ah ee IBS eBesa goob kasta iyo goor kasta. Sombay and Rent Property Finder sifihii mar hore saxariir ahaa iyo suuq fogaa laga samabaxayo sir baan ku haya waana Sombay and Rent Property Finder. ma tahay qof doonaya inuu iibiyo iibsado ama kireysto ama iska kireeyo guri ama dhul ma ku daashay raadinta meel lagu kalsoonaan karo oo si fudud kuu gaarsiisa guriga aad rabto. haddaba xalka waad haysataa maanta. Sombay and Rent waa shirkad online-ka ama waxa loo yaqaano Property Finder oo isku xirta milkiilayaasha guryaha iyo dhulalka real estateska agencies-ka iyo dadka raadinaya guryaha ama dhulalka hoteelada ama furniture apartmentska ama guryaha qalabaysan. waxaana dhammaan adeegaasi aad hal meel uga wada heli kartaa Soomaaliya, Kenya, Egypt, Turkey, UK, USA iyo Saudi Arabia oo boqolaal qof ayaa hore uga faa'iideystay adeegan. adiguna maanta ku biir oo booqo sombayandrent.com. haddii aad tahay agency ama milkiile iska diiwaangeli website-ka ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. mahadsanidin. soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka wararka maanta oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaasheena koobaad iyo labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. idinkoo warar degdeg ah macluumaadyo kale iyo faallooyin ka heli kara oo ka akhrisan kara bartaaynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com.
ku xirno HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka وهاجاج مركن بل أنت نمجد بالنحبنت فلانقينت موليد أنه جلعنا وربحهم كصعب سن السداء إيران وجول ستيني سوردو ديارها دجال كأسرية أمريكا كوكو دجال قرب وربحين الرماني كو آدم وحا إنوها يو سوكو بيوريها يجا محمد عبد الرحمن الشيخ xaalad la yaab leh ayaa ka soo korortay colaadda military ee ka aloosan bariga dhexe ila Mareykan iyo Iran ayaa waxa ay shaaciyeen in diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo nooca F-15E Strike Eagle ay ku burburtay gudaha dhulka Iran sidoo kalena waxa la beegsaday laba helicopter halka weerar kale lagu burburiyay diyaarad kale oo Mareykanku leeyahay oo ah nooca A-10 dhinaca kale ila Mareykan ayaa xaqiijiyeen in hal duuliye la badbaadiyay isla markaasina raadinta duuliyaha labaad ay wili socoto iyadoo aanu la hubinin waxa ku dhacay macnaha in uu nool yahay ama uu geeriyooday dhacdadani waxa ay calaamad ay u tahay markii ugu horeysay ee isbedel uu ku yimaado dagaalka waxaana ay dib ay u soo nooleysay su'aasha ku saabsan heerka ay Mareykanku u maamulaan hawada Iran kadib markii shiigashooyin isdaba joog ah uu bixiyay baahiyeyna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogiyihiisa dagaalka Pete Hegseth kuwaasi oo sheegay in Israel iyo Mareykanku ay si buuxda ay u maamulaan hawada dhulka Iran haddaba maxay qubaradu ay ka tiri Hilal al-Qawaldi oo ah qabiir military oo u dhashay dalka Urdun kana fariistay howlaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay in soo riditaanka diyaaradda dagaalka F-15 ee Mareykanka ee lagu soo riday gudaha dhulka Iran ay tahay wax suurtagal ah iyadoo la tixgelinayo jiritaanka raadaarka nidaamka diirimaadka ku shaqeeya iyo nidaamka difaaca hawada ee horumarsan ee Iran al-Qawaldi waxa uu sheegay in diyaaradda Mareykanka ay u dhawaatay dhulka si ay u fuliso weerar sax ah oo lagu bartilmaameedsanayo gudaha Iran isagoo xusay in Tehran ay leedahay nidaam difaac oo hawada ah oo maxalli ah oo leh awood howlgal oo u dhaxaysa 200 ilaa 300 kiiloomitir lana mid ah nidaamka Ruushka ee S-300 waxa intaasi uu ku daray in aan la iska indhatiri karnin suurtagalnimada cilad farsamo ama qalad bini'aadami oo ka dhacay diyaaradda F-15 ee Mareykanka gaar ahaan iyada oo diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay dhawaanahan gudaha u galeen si qoto dheer dalka Iran taasi oo ka dhigaysa isku dhacyo ay la galaan unugyada difaaca hawada iyo kuwa tiknoolajiyadda casriga ah mid suurtagal ah xakamaynta hawada dhankiisa qabiirka military iyo istiraatiijiyadeed sareeyo guud Xasan Joone ayaa waxa uu sheegay in soo riditaanka diyaaradda dagaalka ee Mareykanka ee gudaha hawada Iran ay keentay su'aalo aasaasi ah oo ku saabsan xaqiiqada maamulka hawada Iran ee Washington ay sheegato isla markaasina ay muujinayso dulduleelo ka muuqda qiimeynta howlgallada ee ku dhisan fikradda ah in difaaca Iran si buuxda loo burburiyay waxa uu sharaxay in soo riditaanka diyaaradaha dagaalka ay ku xiran tahay nidaamka isku dhafan oo difaaca gantaalada hawada ah kuwaasi oo ku tiirsan raadaaro si ay ula socdaan bartilmaameedyada hawada kadibna u hagaan gantaalada si sax ah loona beegsado isagoo xusay in qalad kasta oo ku yimaada qiimeynta waxtarka nidaamkan uu keeni karo yaabab aan la filanaynin oo ka dhaca goobta dagaalka waxa intaasi uu ku daray in qiyaasaha Mareykanka ay u qaateen in inta badani awoodii difaaca hawada ee Iran la burburiyay taasina ay suurtagelisay in laga hadlo in ku dhawaad hawada Iran la maamulo si buuxda balse dhacdadani cusub ayaa si dhab ah u tijaabinaysa aragtidani gaar ahaan iyada oo ay soo baxayaan calaamado muujinaya in qaar ka mid ah awoodaha difaaca ay wili ay sii jiraan gudaha Iran Joone waxa uu xusay in diyaaradda la soo riday ay u badan tahay in ay ahayd F-15E taasi oo ka culus diyaaradaha qarsoodiga ah ee F-35 taasi oo ka dhigaysa mid si sahal ah loo ogaado sabab la xiriira raadeerkeeda kuleylka oo weyn gaar ahaan marka ay sidato hub culus oo si ay u fuliso weerar saca gudaha dalkaasi Iran lana ogaan karo inkasta oo diyaaradahaasi ay ku qalabeysan yihiin nidaamyo horumarsan oo dagaal oo elektarooniga haddana waxa laga yaabaa in lagu qasbo inay ku duulaan joog hoose marka ay beegsanayaan bartilmaameedyo xasaasi ah taasi oo gelinaysa xadka nidaamyada difaaca hawada ee wili firfircoon amaba dib loo howlgeliyay sida uu sheegay mid joogta sida uu sheegay Xasan Joone nidaamyada difaaca
qabiirku waxa uu sheegay in Iran ay wali ay leedahay isku dhaf nidaamyo difaac oo ay ku jiraan S-300 oo Ruushka ah iyo qordaada 15 oo gudaha dalkaasi lagu sameeyay iyo sidoo kale nidaamyo kale sida Machad kuwaasi oo yareeya ku tiirsanaanta raadeerada kana dhigaysa kuwa ka adag in ay ogaadaan diyaaradaha cadawga. fikradani waxa ay taageeraysaa xogta goobta oo muujinaysa in kursiga duuliyaha gaar ahaan kan looga boodo diyaaradda marka la soo rido amaba ay shil gasho uu ka go'ay diyaaradda, taasi oo muujinaysa in mid ka mid ah duuliyaashaasi uu ku guuleystay inuu ka boodo diyaaradda, taasi oo la jaan qaadaysa ku dhawaaqista Washington ee ah in mid ka mid ah shaqaalaha la badbaadiyay halka kan kalena aan wali la go'aamin xaaladiisa. Sarreeye Goote Xasan Joone waxa uu sheegay in soo riditaanka diyaaradda noocaani ah aysan ahayn oo kaliya dhacdo istiraatiijiyadeed oo yar, balse ay sidoo kale ay leedahay macno istiraatiiji ah oo la xiriira awoodda Iran ay ku tartami karto kulana tartami karto Mareykanka maamulka hawada, maadaama howlgallada hawadu ay wali yihiin kuwa ku tiirsan awoodda ugu weyn ee dagaalka hadda lagu go'aamin karo. qabiirku waxa uu sharaxay in dhacdadani aysan yarayn saameynta howlgalkeeda, balse sidoo kale ay muujinayso in xaalka dagaalka uu wali yahay mid adag oo wata yaabkiisa, taasi oo laga yaabo in ay ku qasbayso Washington inay dib u qiimeyso xaaladda hawada, jooga duulimaadka iyo waliba tayada bartilmaameedyada. horumar kale oo la socda warbaahinta dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in diyaaradaha waxbaamgareeya ee B-250 la geeyay hawada dalka Iran, taasi oo muujinaysa isbedel howlgal oo ku wajahan isticmaalka awood dhab ah oo culus si loo beegsado bartilmaameedyo qoto dheer oo la adkeeyay iyada oo aanu la gelin khatar degdeg ah diyaaradaha dagaalka. Joone waxa uu fasiray in talaabadaasi ay tahay isku day lagu buuxinayo wax kasta oo daciifnimo ah oo ka jira xakamaynta hawada, maadaama diyaaradahaasi ay awood ay leeyihiin inay qaadaan miisaan aad u weyn oo hub culus ah, isla markaasina ay fuliyaan weeraro badan oo ka imaanaya jooga sare iyada oo yareynaya suurtagalnimada in ay la kulmaan nidaamyada difaaca hawada. waxa uu carabka uu ku adkeeyay in mustaqbalka howlgalku uu ku xiran yahay nooca hanjabaada Iran, maadaama haddii difaacyada hawadu ay dib u helaan waxtarkooda ay tani horseedi karto isbedel ku yimaada xeerarka dagaalka, halka haddii dhacdadu ay tahay mid gooni ah saameynteedu ay noqon karto mid xadidan balse ay xambaarsan tahay fariimo digniin oo cad. waxa uu ku soo gabagabeeyay in koonfurta dalka Iran gaar ahaan agagaarka marinbiyoodka Hormuz ay tahay xarunta culayska howlgallada hadda socda, sababtoo ah muhiimadeeda istiraatiijiyadeed iyo waliba suurtagalnimada inay noqoto goob ay ka dhacaan dagaallo sii xoogaysta haddii duqeymaha bartilmaameedka muhiimka ah ee aagaasi ay sii socoto. Maxamed Cabdiraxmaan, HBN. waa tahay aad buu mahadsan yahay maxamed oo xubintaasi maxamed oo warbixintaasi inoo soo koobiyay. bal markan aynu u gudubno xubinta falanqaynta ee barnaamijka iyo Mowlid. haddii aynu arrimahan ku sii soconno Mowlid, maxaa ka cusub diyaaradaha la soo riday? sidoo kale soo riditaanka diyaaradahan waxna ka bedeli karaa qaabka mijahada dagaalku u socdo? dhibca ilaa hadda intaynu ognahay waxaa lagu hawlan yahay baadigoobkii askarigii duuliyaha ahaa ee Mareykanka ee diyaaradihii shalay la soo riday la weysan yahay. dhanka Iran way baadi goobayaan oo xitaa lacag ayaa la ballan qaaday, dadka shicibka loo ballan qaaday haddii la heli karo ama qofkii soo hela duuliyahaasi. dhanka Mareykankana waxay wadaan iyaga qudhooda baadi goob ballaaran, laakiin mushkiladii jirtaa waxay tahay oo Mareykanka haysata haddii la damco xitaa in diyaarada meeshii ay galaan oo ama lagu dega dhankii dhulka lama aamini karo. waa dhul buurileeya dhulka, waxaa la aaminsan yahay sidoo kale in gantaalo Iiraaniyiinta ay u isticmaali karaan xitaa diyaaradaha baadigoobka sameynaya. marka sawirro dayax gacmeedada lagu qaadayo iyo macluumaadyo kale oo askariga laftigiisa duuliyaha ah laga yaabo inay ku xiran yihiin qalabka loo yaqaano chipka ama lagula socon karo GPS-ka meesha uu joogo, waxaas la adeegsanaya. laakiin arrinta ilaa hadda la heli lahayaa waxa weeye laguma samayn karo raadraac qalabkaasi. lama yaqaan ma gubtay qalabkii ma askariga iyo ama duuliyihii iyo qalabkii meel kale ay ku kala dhaceen. arrinta lagu wareersan yahay weeye ilaa iyo hadda intaynu barnaamijka ku jirno waa laga yaabaa daqiiqadaha soo socda in wax isbedelaan oo ama Iiraaniyiintu ay helaan ninkaasi ama gabadhaasi duuliyaha ah iyo sidoo kale inay Mareykanku helaan. laakiin ilaa iyo hadda baadigoobkaas ayaa socda. dhinaca kale markaynu ka eegno arrintan
saameyn weyn ayay ku yeelatay dhanka dagaalka xitaa madaxweynaha Mareykanka maalmaha Sabtida iyo Axadda oo kale ma joogo aqalka cad ama Washington dhanba wuxuu aadaa Florida gaar ahaan Mar-a-Lago qasriga uu ku leeyahay waxaa la sheegay halkaas inuusan aadin taa laftigeeda waa calaamad muujinaysa xaalad adag inay jirto haddii uusan aadinba maalmaha Sabtida iyo Axadda oo markasta ku maqnaan jiray halkaasi oo galabta Jimcaha u dhalman jiray waxa taa lagu sifayn karaa inay tahay arrin la xiriirta dagaal oo ay dhici karto in la amro hawlgallo military oo dhaca marka arrintan waxay leedahay saameynteeda ayay leedahay dhaqaaqyo military ayaa gobolka ka jira sawiradan hadda aynu tusayno daawadayaasha ama muuqaalkan waxaynu ka soo qaadanay shabakadda la socodka duulimaadka diyaaradaha ee flight radar la yiraahdo arrinta xiisaha leh waxa weeye waxa halkan socda waa diyaaradaha loo yaqaan C-17 waana diyaaradaha loogu talagalay inay daabulaan ciidamada waxa kale oo iyaguna weheliya diyaaradaha hawada ku siiya shidaalka diyaaradaha kale marka diyaaradan la yiraahdo C-17 haddii aad aragto macnaheedu waxa weeye ciidamo ayaa la daabulaya arrinta marka waxay ka macno tahay in ciidamo fara badan ay soo fool leeyihiin oo gobolka loo sii wado oo tani ay tahay arrin muujinaysa in la isticmaali doono weerar xagga militariga ah oo dhanka dhulka ah arrintaas marka waxa leeyahay arrin suurtagal ah diyaaradan aan ku sheegayo C-17 waa diyaaradahan oo kale dhowr boqol askari ayay midiiba qaadaa marka waxa dhici karta arrintan inay dhaliso xitaa ciidamo Mareykanka dhanka dhulka weerar inay ku qaadaan Iiraan falkan lagu soo riday diyaaradaha Mareykanka ee Iiraan ay sameysay ma la oran karaa Trump waxay siinayaan khiil uu u heli karo duulaan dhanka dhulka ah oo ballaaran oo Iiraan uu ku qaado aad baa arrintaas looga hadlayaa dhinac marka la eego waa laga digayaa dhinacna waxaa la oran karaa qiil inuu helayo uu leeyahay askarigaasi ama duuliyahaasi Mareykanka ah oo ay dhici karto in la qabsaday ama la dilay ayaan u soo aaraya ama soo furanaya haddii labadaas mid ay dhacdo arrinta kale waxay noqon kartaa in markii hore howlgalkan uu diyaarsanaa oo tanna ay noqon karto arrin lagu hoos qarinayo oo la leeyahay Iiraan awooddaas bay leedahay waa inaan weerarnaa oo aan markaasi ka takhalusnaa awooddeeda si aysan khatar u gelin ciidanka iyo gobolka ku sugan laakiin markaad si dhaba u fiirisid xaaladda sida ay tahay Mareykanka duulaan dhanka dhulka aad bay u adkaanaysaa sida khubaradu ay sheegayso waayo waxa la leeyahay arrintan halis weyn ayaa ka dhalan karta waxaana caddayn u ah askartii doonaysay shalay inay soo badbaadiyaan askartan ayaa iyaga laftigoodii qaarna la dhaawacay sida hadalka loo dhigay kuwana diyaaradahoodii la soo gubay xaaladuna markaa way adag tahay ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta waxaanu maraynaa ugu yaraan 7 diyaaradood oo Mareykanka in la soo riday marka arrin sahlan ma arrinta laftigeeda agartay gabagabada ayaynu joognaa Mawlid ma dhaba in Iiraan ay heshay gantaalo cusub oo ay ku adeegsatay soo ridista diyaaradaha dagaalka casriga ah ee Mareykanka horta war waxaa jira aynu u soo gudbin doono daawadayaasheeda barnaamijyada soo socda oo goor dhawata soo dhacay warkan wuxuu sheegayaa in aqalka cad ee waddanka Mareykanka ay ku eedeynayaan Shiinaha dagaalkan inuu toos ugu jiro waxay leeyihiin diyaaradaha iyaga gantaalada lagu soo riday dhowr iyo 20 saac la soo dhaafay ma ahayn hub Iiraan ay haysatay ee waa hub ka yimid ama Shiinaha ama Ruushka marka dhanka Shiinaha loo badinaya hadda oo eedi ay saarayaan Mareykanka waxa kale oo arrintan ay dhici kartaa in baaqashada oo baaqday kulankii golaha maanka ee qaramada midoobay oo la doonay in loo codeeyo ciidamo xoog ku fura Mareykanka Hormuus inay tani qayb ka tahay oo Shiinaha cadaadis lagu saaray oo leeyahay adiga ku lug leh arrintan si dhanka diblomaasiyadda cadaadiska la saarayo oo sanadka diidmada qayaxan u isticmaalin taa waa la oran karaa laakiin khubarada oo dhan waxay isku raacsan yihiin qalabka inuu yahay qalab cusub warow leeyahay Iiraaniyiinta laftigooda awood bay u leeyihiin in ay isticmaalaan hub ay haystaan gaar ahaan gantaal yiraahdo 380 oo ilaa iyo 250 kilomitir 350 kilomitir diyaaradaha ka soo ridi kara waxaasoo markaad eegto waxaa la oran karaa Iiraaniyiinta inay haystaan awood ay ku xisaabtamayeen in muddo ah haddana la isla yimid barxadda dagaalka taasna waxa laga yaabaa in wax ka bedesho xaaladda dagaalka ma ku dhalin kartaa madaxweynaha Mareykanka inuu dib u fakaro oo siirada dagaalkan dhiiqaha ku sii galin waayo xitaa marka laga tago Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil dagaalka inuu dhaxeeyo Ruushka iyo Shiinaha iyaga laftigooda xitaa haddaysan Iiraan u daneynayn
hubkooda ku tijaabinayaan meesha waxay isticmaalayaan dayax gacmeedoodii waxay kaloo isticmaali karaan raadaarada waxay kaloo isticmaali karaan gantaaladooda si ay ugu tijaabiyaan mustaqbalka dagaal haddii uu dhex maro Mareykanka iyo ayagana ay markaasi u noqoto mid ay ku isticmaalaan marka meesha waxaa ku jira waxyaalo kala duwan oo ku lug leh tartanka quwadaha weyn ee caalamka watahay aad baad u mahadsantahay Mawlid daawadayaashuna waa imaadsan yihiin intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa maanta barnaamijkii wararka maanta oo halkan soo wada jira aniga Mawlid aynu kaga aqrinaynay si aad u hesho daawada wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo tabino ama aynu ku soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama waadan hore ugu xirnayna hadda ku soo biir tani intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahitiraha baahi loo qabay Safari Remit adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees